tan iyo 7 jirkaygii tub waliba oo aan soo maraaho waxa ay dhex taagnaa tiir iyo diidaya inaan hore u tallaabsado iyo tarantureynay markii aan daalay ayaan dib u milicsaday taariikhda waalidkay iyadana taxanaheeda oo idilba tiiraanya ayaa dhex tiilay maanta maal ahaan waan dhaqanahay laakiin maskax ahaan ma fiyoobay malaha meeshu dhibto ka bilaabatay inaan mar taga ayaan u baahanahay mana haysto qof midigtayda istaaga oo meeshii aan u socday ii farmuuqa Najati waa wiil dhalinyaro ah oo xoog iyo xoolaba leh waxa uu aaminsan yahay inuu yahay ninka dunida ugu nasiibka daran leh maadaama uusan haleelin hamigii uu habeen iyo maalinba u soo halgamayay waxa uu leeyahay si aad u fahanto oo aad qisadeedan qiil ugu yeeshay waxaan aaminsanahay waxaan ka soo bilaabi doonaa guuldaradii ku timid guurkii koowaad ee hooyaday hooyaday waxa ay ku dhalatay kuna soo barbaartay meel baadiye ah waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan xoog iyo karti fara badan leh markii ay soo gaartay daadii guurka waxa ku soo wada yaacay dhammaan raggii maalka iyo magacba meesha ku lahaa laakiin mid ay ka doorato ayay ka weysay wayna iska diiday waalidkeed oo aad u jeclaana ma qasbin markii muddo la joogay ayaa miirka u soo noqday waxa ayna aragtay in gabdhihii iyada la filka ahaa oo idil caruur u joogaan oo la wada guursaday kaligeedna ay guriga dhex joogto markaa kadib ayay go'aansatay midka ka soo harbaxaba inay iska guursato markii dambe hooyaday waxa ku soo dhiiraday nin aan hanti fara badan lahayn oo tuulada deganaa waxa uu ku qanciyay inay habeen isla baxaan oo ismasaafaystaan waalidkii dhalana laga qariyo halka anigoo aan aaminsanahay inay tahay goobtu nasiib darrada iga bilaabatay waxay isla aadeen shiikhii isku mehrin lahaa markii la hortagay ayaa hooyaday la weydiiyay waxa uu meherkeedu yahay waxa ayna sheegatay 2 neef oo ari ah inuu yahay meherkeedu ninkii oo aad uga carooday arrintaas ayaa ka istaagay goobtii oo hooyadayna ku yiri guurkii aan ku soo watayna waan ka baxay maadaama intaas hamiyo kugu jiro anigana aan haysanin hooyaday waxa ay isku dayday in ninkaas ku qanciso inay ka tanaasuleyso dhammaan wax alla wixii ay sheegatay inta awoodiisu la eg tahayna laga dhigi doono meherkeeda laakiin waa uu diiday waxaana dib loogu soo celiyay meel laga wada maqlay in la masaafaystay oo la keenay iyadoo meher xitaa ku dhicin hooyaday haddii ay go'aansatay inay guursato magaf bay gashay maxay galabsato goobta looga kala tagay ninkaasi muxuu hooyaday dayaca u geliyay dhibaatadan adduunyada hooyaday waxa ay ku nooleetay noloshaasi murugada leh muddo fara badan markii dambe waxa ay guursatay aabahay haddana waxa ay gashay gafkii labaad ee nolosheeda hooyaday markii ay guursatay aabahay waxa ay ilowday dhammaan murugadii soo martay nolosheeda waxa ay heshay farxad aad u fara badan leh markii aniga la idhalanna reerka waxa ay heleen hanti aad iyo aad u fara badan maalin maalmaha kamid ah aniga oo 7 jir ayaa gurigeennii waxa yimid adeerkay waxa uu fadhi la qaatay aabahay wuxuuna u sheegay in ay qasabtaa hadda wixii ka dambeeyay inuu guursado xaas kale maadaama hooyada aysan dhalin cunug kale sababtuna waxay ahayd waxa inoo jooga geel fara badan waxaana loo baahan yahay rag dhaqaaleeya aabahay fikir ahaan arrintaasi uu ku qancay hooyaday markii uu u sheegay arrintii waa ay ku gacan seertay waxayna ku qancisay in iyaga ay ku filan yihiin hantidan u taalla markii aan noqday 11 jir ayaan aabahay maalin waxaan u soo raacay ceelkii uu ka waraabinayay geeleenii iyada oo lagu jiro waraabintii ayaa waxa is-afgaran waa uu dhex maray aabahay iyo rag kale dhalinyaro ah waxaana meeshii ka dhacay dagaalkaasi aabahay waxa loogu geystay jug aad u culus oo uu ku waayay gacantiisa midig maalinka wixii ka dambeeyay aabahay waxa uu ahaa naafo hooyadayna aniga oo yar ayaan maqli jiray iyadoo dhahaysa haddii aan ogolaan lahaa taladii adeer uu maalinka inoo soo jeediyay maanta wax wiilkayga garab istaaga ayaan haysan lahaa 5 sano kadib waxaa geeriyooday aabahay Allah u naxariistee waxaana geelkii faraha badnaa uu u soo haray aniga iyo hooyaday ma haysano xoog iyo tabar aan ku dhaqaalaysano wax garabkeena istaagaahona ma jirin xataa talana siiyo wixii aan ka daba rafannaaho xoolihii waxa ay noqdeen wax naga lumay iyo waxna laga xaday intii soo hartay yareedna hooyaday waxa ay go'aansatay inay la guurto oo meel aan laga aqoon aan la degno sidii ayaan yeelnay waxaana u guurnay meel aan la garanaynin markaa kadib hooyaday waxa igu tiri waxa iska dhigtaa nin xayi ah karti fara badan hooyada awoodeedii ay lahayd ee tii aabaha isku darso ismuuji oo tabardarradeena dadkaysan arkin waxaan ahay 16 jir markaa soo baxaya ha yaraatee wax daal aan garanaynin
waxaan isku dayay in aan sameeyo hooyaday waxa ay jeceshahay laakiin ma jiro qof i hagayso waddada saxan ii sheegaysa markii aan muddo meeshii deganayn oo noloshii meesha ka jirtana la qabsannay xoolahaynina dhaqaalaysanayno ayaa waxaa timid abaar lama filaan ah waxa ay cagta maraysa wax alla wixii aan xoolo haysanay waxaana soo fariisannay muuro madow waxaan noqonnay dad ceyr ah oo haba yaraatee waxay haystaan aysan jirin intaa waxa sii dheer hooyaday waxa ku dhacay cudur aad u xun oo aan la garanaynin tan iyo iminka waxa uu ahaa muddo kadibna waa ay geeriyootay wiil yar oo aan aabbe haysan hooyadiina geeriyootay neef haba yaraatee hor taaganna uusan jirin gaajadu ka hor muuqato murugta iyo musiibadu dhexda kaga jira ayaa noqday markaa kadib waxaan soo galay magaalada aniga oo isweydiinaya niyahow maxaa qaldan markaad istiraahdaba way toostay waxa dhexda idii taagan waan soo baxay waxaana ku biiray